عشان كده maanta wuxuu ku saabsan yahay waa qaybtii saddexaad drivers handbook safety equality and regulatory understanding marka insha Allah waxaan isku dayaynaa inaynu ka hadalno qaybta saddexaad marka qaybta saddexaad waxay ku saabsan tahay shaqada aad qaadayso iyo wax kasta oo la xiriira shaqada aad qaadayso shaqada aad qaadayso waxa la yiraahdaa booking waxaan ka hadli doonaa booking detailska waa topigyada uu ka kooban yahay sectionkani section 3 carrying out private hire journeys wuxuu ka kooban yahay qaybahan soo socda waxa ugu horeeya bookingka booking details and late night operating centers waxa weeya waa maxay hayday in habeenada ay xafladuhu jiraan meelaha ka jiraan iyo clubyada iyo si shaqooyinka ka qaadayso ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay shaqooyinka laga qaadayo airportada waxaa kaloo ka hadli doonaa shaqooyinka ka baxsan Greater London oo ah meesha aad adiga license aad u haysato waxaan ka hadli doonaa lacagta haddii gaariga wax lagaga tago iyo haddii aad la kulanto waxyaalo maad aragtay suspicious ama maad aragtay in waxyaalo maad aragtay muxuu ahaayay in noqon kara maad aragtay khatar iyo mararka qaarkood haddii aad u baahan tahay tripka ama shaqada inaad ka salgarayso marka runtii markaad eegto topican ama maxay ahayd ama sectionkan maad aragtay shaqada ku saabsan waxay ku base gareeyeen inta badan muxuu ahaayay in local minicabs beriga ay jireen marka waxaad u malaysaa inay wax yar ka yara duwan yihiin sida hadda maad aragtay upcominiyadu ay u shaqeeyaan laakiin generally shuruucda laga rabo iyo sidii aad u handle garanaysay waa isku mid marka sectionkan wuxuu ka koobnaan doonaa 9 topic buu ka koobnaan doonaa 9kaas aynu mid u dul istaagi doonaa haddii Ilaahay raado haddaan ku horeyno bookingka as a London PHV driver waxaad ogaataa PHV marka laga hadlayo private hire industry laga hadlayaa dirawalka gaariga iyo qoladan dilaaleyda dilaaleyduna yihiin waa operatorska sida maad aragtay Uber iyo maxay ahayd qolooyinka kale oo maad aragtay muxuu ahaayay in localka marka adigu waxaad tahay London PHV driver ayaa tahay adiga gaarigaaguna waxa la yiraahdaa PHV ama private hire vehicle ayaa la yiraahdaa gaarigaaga qolada dilaaleyda ah oo maad aragtay shaqada inoo soo dirtana waxa la yiraahdaa PHV operator waxaan ku hadlaynaa London taas la soco kama hadlayno Glasgow iyo meel kale adiga London PHV driver waxaad qaadi kartaa oo keliya shaqa uu ku soo diray London PHV operator dilaaleyda maad aragtay London ka qoran ama operatorada London ka qoran shaqa ay ku soo diraan kaliya uma qaadi kartaa Glasgow mid ku yaala iyo Birmingham mid ku yaala shaqa ku soo diraan ama ka register gareysan hay'ad ma qaadi kareysa gaariga aad ku qaadi kareysana waa inuu yahay London license PHV waa inuu gaari London license ka haysta maaha mid meel kale ka haysta waxa muhiim ah qolooyinka shaqooyinka ku soo diraya oo la yiraahdo PHV operators ka la yiraahdo
inay license leeyihiin haddaysan license lahayn oo aad shaqadooda qaado minas waxaad ku mashquulsan waxaad tahay in oo samaynaya waxyaalo oo illegal ah marka dad ka shakido waxaad samaynaysaa waxaad weydiinaysaa detailkiisa waxaad check garanaysaa TFL website-keeda ayaad ka check garan karaysaa waxay ku leeyihiin xasuusay ku leeyihiin ama ogow PHP uu ka duwan yahay taxi ma black hat uu kala duwan yahay isku mid maaha saas awgeed adiga laguma ogola weligood ogtihiin inaad ka qaado streetka stationka airportka adiga oo aan haysanin booking xataa streetka hormara office-ka aad u shaqayso kama qaadi kartid lama ogola qof inuu gaarigaaga soo galo asagoo oo aan booking haysan la socotaas qofna uma ogolaan kartid gaarigaaga inuu soo galo asagoo aan booking haysan laguma ogola habeeraatee inaad u baaqdo amaba aad ku tiraahdo wax kasta oo loo fasiran karayo inaad qofkaa ku qaadi karayso adigoo aan booking haysan midis waxa weeyaan waddada istaagto aad tiraahdo waad qaadaya amaba aad u baaqdo amaba aad ani wax oo ku saabsan aad tiraahdo wax oo loo fasiran karayo habeeraatee laguma ogola haddii uu qof ku yimaado adigoo meel taagan oo ku yiraahdo qaad waxa weeyaan waxa lagu ogol yahay inaad siiso business cardka ama telephone numberka ama website-ka cidda aad u shaqayso operator-ka aad u shaqayso halkaas waxaan ku dhamaynay booking-kii baan ku dhamaynay imika waxaynu gelaynaa booking details-ka inta aan adiga shaqada lagu soo dirin operator-ka ama dilaalka aad u shaqaynayso wuxuu ku qasban yahay inuu record gareeyo muxuu ahaye information ku saabsan muxuu ahaye booking-ka inuu record gareeyo ayaa ku qasban yahay inkastoo adiga shaqadaada ahayd inaad record garayso amaba aad maaragtay aad record garayso informationkaas haddana waxay ku leeyihiin waxaa muhiim ah inaad ogaato waxyaalaha looga baahan yahay in operatorku uu register gareeyo si aad ula socodsiiso haddii ay wax iska bedelaan goordhow markii aad tripka accept garayso tusaale ahaan haddii uu bedelo destinationka ama meesha uu socdo informationka looga baahan yahay inuu maaragtay la record gareeyo waxaa ka mid ah waqtiga booking-ka la sameeyey haddii uu ka duwan yahay waqtiga qofka la qaadayo ama waa date-ka magaca qofka la qaadayo waqtiga iyo meesha qofka laga qaadayo haddii ay badan yihiinna qofka ugu horeeya waqtiga ama meesha laga qaadayo waa inay record gareeyaan waxaa kaloo loo baahan yahay inay record gareeyaan ama ay maaragtay hayaan ama ka record gareeyaan waxa weeyaan waa meesha ay u socdaan lacagta laga qaadayo ama qiyaastii lacagta laga qaadayona waa inay record gareeyaan magaca dirawalka qaadaya ama identification keys oo noqon kara muxuu ahaye PCO numberka iyo iyagana inay record gareeyaan waa qofka shaqada qaadaya gaariga lagu qaadayo registrationkiisa iyo detailkiisa kalena inay register gareeyaan bay u baahan yihiin marka taas waxay tahay waa booking detailska ama shaqada aad qaadayso muxuu ahaye informationka ay ka kooban tahay haddaan intaa kaga baxno booking detailska waxaan gelaynaa waxaan ay yidhaahdaan late night venues meelaha xafladuhu ka dhacayaan habeenkii amaba muxuu ahaye pubska ama meelahaas ayuu ku saabsan yahay topican mararka qaarkood
inta badan waxay u badnayd berigii app company intaanay imaanin bay ay u badnayd operatorada qaar ba waxay haystaan license inay maaragtay muxuu ahaayay in clubska iyo pubska dhexdooda ay maxay ahayd ay muxuu ahaayay in shaqada ku qabtaan marka waxay ku sheegaan ku leeyihiin operatorka haddii uu license haysto oo kaga shaqeeyo habeenkii sida maaragtay pubska iyo night clubska bookingka waa inuu fadhiyaa meesha gudaheega banaanka looma ogola adigu waad aqbali kartaa muxuu ahaayay in passengerku markuu uu booking ka samaysto muxuu ahaayay in operator markaas waad aqbali karaysaa waa markuu maxay hayday uu booking ka soo samaysto adiga laguma ogola inaad dadka u tagto oo pavementiga taagan amaba dibadda jooga muxuu ahaayay in meeshaas muxuu ahaayay venue-gaas dibadda istaaga inaad u tagto oo aad muxuu ahaayay in aad tiraahdo ama aad service offer garayso ama service aad siiso ama maaragtay aad shaqo maaragtay aad iska qaado adigoo bookna laguma ogola haddii lagugu qabto means waxa weeyaan you are committing maxay in waxaad ku jirtaa maxay in dembi baad ku jirtaa waana lagu prosecute garan karaa ama maxay waa lagu soo maxay waa lagu dabageli karaa waxay ku leeyahay haddii uu customer ku yimaado waxaad siinaysaa maad u sheegaysaa inay gudaha ay booking ka soo samaystaan maad u sheegaysaa weli waxaan ku jirnaa muxuu ahaayay in late night venue-ga ay ku leeyihiin mas'uuliyad aday ku saaran tahay gaarigaaga inaad meel fiican ku baarin garayso inaad qaylada amaba maaragtay muxuu ahaayay in qaylada maxay ahayd wuxuu samaynayaa maxay ahayd in shanqadha uu samaynaya gaarigaaga iyo adiga maxay ahayd behavior-kaagaba inaad ka taxadarto habeenkii maadaama maaragtay muxuu ahaayay meeshu ay tahay meel ay degdegan yihiin oo ay gudaan waxa weeyaan waa inaad ka fikirtaa environment-ga kugu wareegsan ama ku wareegsan meesha aad ka shaqaynayso haddii ay tahay traffic-ga dadka maxay ahayd lugeynaya iyo maaragtay muxuu ahaayay wax kasta oo maaragtay dib u keeni karay dadka maxay ahayd in meesha degan waxay ku leeyihiin ha u dhaqmin sidii anti-social manner baba maaragtay sidii maaragtay qaldan maxay ahayd in jidka ha ku tuurin maxay ahayd in wax wasakh ah banaanka maaragtay ha ku in toilet ha u isticmaalin muxuu ahaayay gaarigaagana injinkiisa waa inaad baktaysa waa habeenkii markaad shaqaynayso ay sheegay iyo mar walba kulley waxay ku leeyihiin waa inaad respect garaysaa areada aad ka shaqaynayso waxay ku xasuusinayaan haddii complaints lagaa bixiyo ama lagaa soo cawdo ama diraw laga soo cawdo booliiska iyo TFL-ba investigation ayay ku samaynayaan ku saabsan muxuu ahaayay in cabashadii lagaa soo diray waxaa markaa dhici karta in ama license action lagaa qaado ama muxuu ahaayay in muxuu ahaayay prosecution lagu sameeyo waxaan kaga baxaynaa late night venues dadka habeenkii shaqeeya waxaa ku xiga airportska airportska waxa iska leh private baa iska leh marka ayaga sharciga iyo policy-ga maaragtay ay meeshaas maxay ahayd ku maamulayaan iyaga ayaa samaysta waxaa loo yaqaanaa policy-gaas ama rule-kaas ay samaysta waxaa loo yaqaanaa bylaw marka Heathrow wuxuu leeyahay bylaw-giisu leeyahay haddii aad eegto muxuu ahaayay in handbook-ga waxa weeyaan ereygan waa aad kala garaysay ereygaas waxa weeyaa waa tegaysaa markaas maxay ahayd bylaw-giisa la karaysaa waxaa lagaa rabaa
inaad maaragtay muxuu ahaye in aad taqaano lana socoto maxay ahaydeen iska ilaaliso maaragtay si aan dhibkaaga soo gaarin waxay ku leeyihiin for example Heathrow Airport yeah Heathrow Airport ma geli kartid bay ku leeyihiin haddii aanad si aad passenger uga soo qaado haddii aanad booking haysan mid iska logic ah sababtoo ah hadda qof oo tegi karaa ma jiro sababtoo ah waxaa lacag baa lagaa qaadaya waa dad gashay marka haddii aad sugaysin waxay ku leeyihiin waa inaad ku sugtay AVA waa inaad ku sugtay markaad qof ka soo qaadayso airportka waa inaad isticmaashaa official car park waa inaad isticmaashaa waxay ku leeyihiin meelaha xaafadaha ah oo airportka u dhow oo residential area ah laguma ogola inaad meelaha aad ku sugto amaba aad joogto waxaa kaloo kuu sheegayaan tax rank uu leeyahay Heathrow Airport iyo muxuu ahaye iyo London City in ay khaas u yihiin black cap-ka adiga laguma ogola inaad istaagto laguma ogola inaad ku sugto laguma ogola inaad drop off ama pick up aad ku samayso midna laguma ogola kaas waxaan kaga baxnay airportska iminkana waxaan gelaynaa muxuu ahaye shaqooyin ka baxsan Greater London asaad la socotaan adiga waxaa tahay London PHV driver marka waxaad ka shaqeyn karaysaa oo keliya amaba maaragtay laysankaagu wuxuu ku siinayaa muxuu ahaye in Greater London keliya ku siinaya halkaasaad adigu ka license ka tahay laakiin cross border baa jira marka laakiin adiga waxa ay ku leeyihiin shaqo u socota outside London ama outside Greater London waad qaadi karaysaa outside Greater London waad ka soo qaadi karaysaa laakiin shuruuddu waxa weeyaan shaqada inuu aqbalay London PHV operator min isdilaalayda London ka shaqeysa inay aqbalaan sida Uber iyo Bolt iyo maaragtay iyo local office inay aqbalaan weeyaan marka wuxuu ahaye in taas weeyaan shuruud waad ka qaadi kartaa outside London waanad geyn kartaa outside London laakiin shuruuddu waxa weeyaan waa inay shaqadu kaaga timid London PHV operator haddaa ka shaqeysantahay bay ku leeyihiin PHV operatorka aad u shaqeynayso ma waxay ku leeyihiin haddii aad ka shakisan tahay shaqadan aad qaadayso inay legal tahay iyo inaysan illegal ahayn waxaad weydiin kartaa operatorkaaga ayaad weydiin kartaa bay ku leeyihiin halkaa waxaa ku dhammaaday shaqooyin ka baxsan outside London waxaan gelaynaa hadda lacagta ama feeska waxay leeyihiin TfL ma haysato power ay ku maxay ahaydee in ay ku control garayso lacagta laga qaadayo passengerska ama lacagta ay qaadanayaan operatorsku ay qaadanayaan PHV operators hase ahaatee waxay ku leeyihiin waa muhiim in customerska oo dhan ay fahmaan muxuu ahaye in lacagta la charge garayn doono inay og yihiin waxay ku leeyihiin waxa iska leh maxay ahayd mas'uuliyaddaas adiga waxa iska leh maxay ahayd dilaalada u shaqeyso iyaga ayaa feerka la agree garaynaya ama muxuu ahaye kula heshiinaya muxuu dadka la qaadayo haddii mid laga soo qaado passengerka aad wada uu go'aansado inuu bedelo meesha uu socdo waxay ku leeyihiin amaba maaragtay
meelo kale uu sii marayo amaba ay dad kale soo fuulaan amaba luggage kale oo dheeraad uu ku soo diro oo ka badan intii lagu heshiiyey waxay ku leeyahay waa inaad u sheegtaa muxuu ahaayey operatorskaaga operatorka waa inaad u sheegtaa ama dilaalka aad u shaqaynayso waa inaad u sheegtaa si uu maaragtay fairka markaas muxuu ahaayey uu adjust gareeyo markaad istaagto meel maaragtay safe ah kadibna wuxuu awoodaa maxay ahaydeen operatorka ama dilaalkaas wuxuu awoodaa inuu fairka update ku sameeyo waxaa kaloo ku leeyihiin haddii matalan kaba soo qaad markaa shaqada dhammayso qofkii uu diido inuu bixiyo amaba maaragtay uu muran ka keeno muxuu ahaayey lacagtii waxay ku leeyihiin waa inaad la socodsiisaa operatorkaaga matalan kaba soo qaad waxaa dhici karta in ay ku weydiiyaan dadkaad qaadaysaa inaad rasiid siiso marka rasiidkaasna matalan kaba soo rasiidkaasna waxaad kala tashanaysaa ama la weydiinaysaa operatorkaaga app company-ga iyagu waa ka duwan yihiin sababtoo adigu lacag ma qaadaysid qofka lacagta qaadaya ayaa la rabaa in rasiid bixiyo marka waa inaad rasiid aad siin karaysaa marka waxa weeye waa inaad la heshiisay marka ugu horeyso taqaanaa sida u shaqayso muxuu ahaayey agreementga leedihiin kolley rasiid bay siiyaan muxuu ahaayey dadka qolada minicabku kuwaasaa siinaysa app company-gana uma baahan sababtoo adiga maaha qofka lacagta qaadaya feeskalkaasaan kaga baxaynaa soo haray lost properties ama wixii gaarigaaga looga tago waxay ku leeyihiin mar kastoo aad shaqada dhammayso waa inaad eegtaa inuu gaarigu waa inaad eegtaa in muxuu ahaayey in maaragta qofkii maaragta degayay wax kaga tegay gaarigaaga haddii matalan kaba soo qaad passengerku uu muxuu ahaayey guudka uu alaab gashtayna waa inaad uga soo saartaa wax iska logic ah haddii looga tago alaab gaarigaaga waxaad ku celinaysaa operatorka aad u dhiibaysaa operatorka waxa laga rabaa ama waxa qasab ku ah inuu record gareeyo muxuu ahaayey alaabta looga tegay by law ama sharci ahaan operatorka ama ka dilaalka ah oo u shaqaynayso waa inuu sameeyaa record uu ku maaragtay ku xifdinayo maaragtay wax walba oo lost property of gaarigaaga looga tegay waxay ku leeyihiin sida ugu dhaqsaha badan ugu sheeg muxuu ahaayey operatorkaaga muxuu ahaayey marka wax looga tago si maaragtay muxuu ahaayey ay maxay haddii ay la soo xidhiidaan uu isna ugu sheego in wixii loo hayo amaba maaragtay aan haynin taas waxaan kaga baxnay lost properties ama wixii gaarigaaga looga tago waxaynu gelaynaa suspicious items and behavior waxay la xidhiidhaa inta badan arrinta maaragtay muxuu ahaayey sida maaragtay muxuu ahaayey inta badan terrorismka iyo waxyaalaha maaragtay waxay ku leeyihiin argagixisada maaragtay meel walba ay ka dhici karaan waqti kasta iyadoon cidna maaragtay aanay ka warhaynin ama maaragtay si kelisa ay u dhici karayaan waxaa lagu leeyahay haddii adigu aad muxuu ahaayey badanaa wixii gaarigaaga looga tago wax iska leh ama waxa kaga tegay customerska kaga tegay bay ku leeyihiin laakiin haddii aad ka shakido oo aad aragto alaab aan maaragtay unattended ah waxay ku leeyihiin muxuu ahaayey waa inaad garaacdaa 991 and follow the instructions waxaa kale kugu waaninayaan be aware ay ku leeyihiin ama ogsoonow amaba ka warhay agagaarkaaga wixii ka dhacaya oo maaragtay unusual ah amaba doesn't feel muxuu ahaayey oo maaragtay kula ekay wax saxsan oo kale
ما دركتي كور هاي بكلين أنا أقول كرت قف تقارنه أنا أقول كرت باسنجر كنا أقول كرت أنا أقول كرت قف كله أما ما هي هذا إن هو واحد كستو أديك aad u aragto inayna maaragtay inaanay maaragtay sax ahayn ama maaragtay shaki ku geliyo weeyaan waxay ku leeyihiin you can report waxaad report gareyn kartaa wax alla wixii maaragtay muxuu hayay muxuu hayay in wari kugu sameeya ama maaragtay shaki ku geliya oo activity ah waxaad la hadli kartaa way ku leeyihiin muxuu hayay telefonkaas oo ah confidential waxaa la yiraahdaa anti-terrorist hotline baa la yiraahdaa yaa la hadli karaysa aka baqan bay ku leeyihiin inaad booliiska aad waqtiga ka luminayso iyaga ayaa marka garanaya kolley siday ula dhigi garaynayaan marka taasay ku weyn kuwala garaynayaan qodobka ugu dambeeya maanta casharkan aynu qaadanayno waxa weeyaan when a booking cannot be done waxa weeye markaad rabto inaad bookingka cancel garayso waxa ku leeyahay markaad booking accept garayso waxaa laga rabaa inaad bookingkii ama shaqadii ama shaqa markaad accept garayso waxaa laga rabaa shaqadii inaad samayso ilaa aad haysato muxuu hayay in wax muhiim oo aad ku cancel garayso mooyaan waxaa dhici karta mararka qaarkood inaad u baahato inaad cancel garayso sababta oo ah maxay ahayday in shaqada waxaad u arag shaqadan ma awoodid ya waxaa laga yaabaa for example in aanay safe ku ahayn oo ay sitaan matalinka la soo qaad muxuu hayay in quraarad furan amaba alcohol ay sitaan amaba maaragtay dangerous or flammable waxyaalo maaragtay gubanaya ama khatar ay sitaan ya oo maxay ahayd mararka qaarkood ba ay violent yihiin ama ay offensive yihiin markaasoo kale waad cancel garayn karaysa situationo badan baa jira oo aad ku cancel garayn karayso shaqada waxay ku leeyihiin haddii aad shaqada qaban kari weydo si maaragtay muxuu ahayay polite ah ugu sharax waxaa laga yaabaa inay ka hor tagto in complaints lagaa sameeyo si aan adiga complaint lagaaga sameyn qofka markaad shaqadii qaban kari weydo si yaroo friendly oo maaragtay polite ah ugu sharax sababta aanad maaragtay shaqadan u qaban karayn badanaa markaad qofka is aragtaan inta badan uu bariyo app company-ga qofkiiba ismaydan arag markaad kasii garaynayso markaad shaqada cancel garayso waa inaad u sheegto operatorkii app company-ga tan ma qusayso markaad local company markaad local hay'ad minicapka u shaqaynayso waxa weeyaan markaad shaqadii aad qaban kari weydo waa inaad u sheegtaa si ay qof kale ugu diraan waxay ku leeyihiin maadaama operatorku shaqada aqbalay asaga ayaa mas'uuliyad ka saaran tahay shaqadaas in la qabto marka wuxuu samayn doonaa ama dirwal kale ayuu u dirayaa ama qofkii wuxuu u sheegi doonaa shaqadii in la cancel gareeyay oo aanu maaragtay muxuu ahayay oo aanu dimada shaqada la samayn karin inuu gaari wahayn ama wuxuu waday waa inaad u sheegtaa muxuu ahayay operatorkaaga maaragtay inaan shaqadii aan qaban karin laguma ogola inaad diido shaqo haddii uu passengerku uu yahay disabled qof oo maaragtay muxuu ahayay disabled ah ma diidi karaysid ama qof oo wata assistant dog ma diidi karaysid section 8 ayaa si
waa dheeraada looga hadli doonaa laakiin imku way soo qaateen markaad shaqada cancel garanayso waxa weeyaan waa inaad iska ilaalisaa qofka maaragtay in aanad discrimination ku samaynin iyaga discrimination bay u arkaan oo ahay haddaad diido disable ama qof oo maaragtay guide dog haysta ama assistant dog haysta laakiin waxay noogu imaan doontaa section 8 ayay noogu imaan doontaa oo si maaragtay si deep ah looga hadli doonaa casharkeeni maanta intaas ayuu ku dan yahay waxaan gelaynaa hadda muxuu ahaayey waxaan geli doonaa su'aalaha laba su'aalood baan soo diyaariyey marka labada su'aalood baan isla eegi doonaa waxay ku saabsan tahay casharkii koowaad buu ku saabsan yahay waxaa laidinka rabaa su'aashaas inaad ka soo jawaabtaan oo aad soo dhigtaan midda saxda ah xagga hoose waxaa leeyahay waa maxay informationka ku yaala batchka information nooceed keeni kartaa what's the information what information should be displayed on the PHP drivers batch code waxaa lagu leeyahay name address and telephone number name photograph license number and a license expiry date C na waxa weeyaan waa license expiry date patch number and date of birth كيف صح تردحي name photograph license number and license expiry date تردحي حسب مو صح كويس license number and license expiry waxaa ku qoran dee magaca oo ah qofka magaciisa sawirkiisa numberka ee laysinka iyo laysan expire date صح what about the first one wrong na address kuma qorna telephone number kuma qorna kana kan muxuu hayaa hoose أنا غلط photograph قبل لا date of birth kuma qorna taas qalad exactly marka ta saxda waxa weeyaan maxamed tan waxa ka maqan magacii photograph-kii wixii baa ka maqanta u dambaysa marka taas qalad u okay the next question okay tirwa meelaha banaan buu waxa weeyaan marka waxa lagu yiri please complete the following passage by selecting a word or a phrase and dragging into the space in the sentence. Any unused words must be dragged into the red box before moving on to the next question. waxa laga rabaa instruction waxa weeye waxa laga rabaa saddex xabo sax inaad geliso wixii qalad halka inaad geliso instruction waa saas marka waxaan ku bilaabaynaa marka ugu horeysa all of them halkaas aan gelinayna kadibna waxaan raadinaynaa okay maxaa halkan galaya saynaan u ilaawin marka horeba kulligood xaggaas geli marka maxaad u malaynaysaa ka ugu horey maxaa galaya TFL private BHV BHV baa galaysa BHV baa galaysa BHV has work as a London BHV baa galaysa waas ku raacday baan malaynaya aniga kulli saas ay leedahay haddii kale private bay noqon laakiin 90% ani BHV baan dhihi lahaa okay waxa weeye haddii waxa la eegaa akhri bal maxay sidee ba dhamaysaa to work as a London private driver that's right okay as a London private hire ما BHV يا شيخ BHV قلي BHV driver you will need to license by TFL driver you will need to, yes you are BHV okay waxa weeye haddii ma dartay dhadhami wala dhadhamiya haddii ma dartay muxuu hayay to work as a London BHV driver or is it London private driver? You're not private driver.
والله TFL driver or DVLA driver or taxi driver driver you will need to be or PHP driver okay license PHP TFL waa takalana yes kana TFL bagalaysa okay kana BHP okay BHP PHP وين استعماله مرة PHP private hire operator okay لما private هذا ماشي كويا لا private with a capital yeah private with a small letter which one do you think is the right one small letter small letter yes why do you think it's small letter big letter because middle private name magac ma aha yeah okay well صح ويان because sentence كما بلابن magaco special أنا ما ها magaco official أنا sentence كما بلابن يدون مقعين ديسن محمد يدون مقعين okay عشان كي مركا هاي هذا كان كلا عنده سؤال ها one more time and then كان أول بوي دي سي قليه كان دي سي قليه مركا حلو قليه you must be aged space 21 older than 21 بس كل راعدين so easy what's the next one when you apply license apply for your license so you got two licenses look here two licenses small letter and a big letter capital letter no small letter وين ها because معها in the beginning of sentence معها مقعنا معها at the jam أو كلمة capital letter like a license yeah yes هي حاجة ليه محي هذيك كسدحات St. Stephen's Church there's no Apple age limit yeah I think W13 like that Apple age limit is it up age or upper age upper age okay WER yes yeah as a correct answer what garateen marka insha Allah imtixaanku saas uu egyahay marka kuwa lagu sheegay lagu leeyahay fill the blank ama madax drag and drops ama meelaha banaan buuxi hadba waxa u taqaanaba waa noocaas waxa laga rabaa marka ugu horeyso waxa laga rabaa inaad meesha casaanka kulligood wada geliso hadda halkan kaga tagto points ba ka lumay ogow qaladka dalka kaga tagto points baad luminaysaa marka waa inaad halkan gelisaa kulligood wixii saxdan halka gelisaa okay hoos ba laga qaadaya miyaa halkan ay wada yaalaa marka ugu horeyso waxay u eg yihiin let's go back a bit marka hore su'aasha aad helayso waa sida halkan ay yaalaan meeshana way bannaan tahay halkana way bannaan tahay marka waxaad samaysaa marka ugu horeyso shaqo waxaad ka dhigataaba horta marka hore halka kulligood wada geli kadibna halka ka soo dooro markaad halka wada geliso sida kan oo kale kabacdina ka soo dooro wixii aad saxda ah khayr allah ku sii aad ma asanta shukran insha Allah marka cashirkeena maanta waxaan u maleynayaa tii ugu dambeysay su'aashan waan aragnay halkaas ku dhamaaday